السلام عليكم. dad badan ayaa isweydiinayo tikraadii xaggee aadeen, maxaa dhacay, hal mar maxaa loo kala aamusay, xagguu aaday ama xagguu cirib iyo jaan dhigay Debretsion Gebremichael ama Mikhail, hogaamiyihii jabhaddii tikraada TPLF. intaan wax kale la gaarin, shalay waxaa dagaalamay Itoobiya iyo Suudaan, xuduudka ayay ku dagaalameen. maleeshiyada Itoobiyaan ah oo gacan ka helay ciidanka Itoobiya iyo ciidanka Suudaan ayaa dagaalamay. Itoobiyaankuna waxay cayriyeen Xamduuk. مجددا منطقة الفشقة في ولاية القذارف كانت مسرحا لمواجهة عسكرية بين الجيشين السوداني والإثيوبي. 4 قتلى في صفوف الجيش السوداني بينهم ضابط برتبة رفيعة و12 جريحا في معارك مع ميليشيات إثيوبية مسلحة على الشريط الحدودي بين البلدين. haddaan ku laabanno loolanka gobolka Tigreeda, dhacdooyinkan waan daneynayay aniga shakhsi ahaan arrimo badan awgeed. si weyn ayaan uga hadalnay dhacdooyinkan, laakiin maalmihii la soo dhaafay maxaa dhacay, maxay u dhacday aamusnaan buuxdo, xaggii wax marayaan. inta aanan wax kala gaarin, xaqiiqada dhulka taallo oo aanan la iska indhatiri karin waxay leedahay ciidanka federaaliga Itoobiya wuxuu qabsaday gobolka Tigreeda, uguna muhiimsan tahay caasimadda Makalle ama Maqalle. laakiin kelmadda laakiin kun sadar hoos dhig, waanu imaan doonaa. qisaduna intaan kuma eka, bal waxaa la dhihi karaa waxaa bilowday fasal kale ama fusuul kaloo ka mid ah loolankan taagan. الجيش الأثيوبي أعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي. رئيس أركان الجيش قال إنه تم تحرير 7000 عنصر من عناصر القيادة الشمالية التابعة للجيش، وأنهم تمكنوا من الاستحواذ على كل الأسلحة والآليات الثقيلة في معسكر القيادة الشمالية. qodob la xiriiro miisaaniyadda Itoobiya. maanta waa Khamiis 17 bisha 12. shalay Arbacadii aan soo dhaafnay, midowga Yurub ayaa joojiyay 90 milyan euro oo uu siin jiray lacag uu ku taageeri jiray miisaaniyadda Itoobiya. wax yar waan isku soo laaban doonaa. The European Union has postponed nearly 90 million euros in aid to Ethiopia amid concerns over a crisis in the Tigray region, according to an internal EU document. arrinkan oo ka dhigan in aan ka xunnahay sida ay leeyihiin oo sida uu midowga Yurub leeyahay argoosiga bahalnimada ah ee uu samaynayo ciidanka federaaliga Itoobiya. dabcan oo intooda badan ah dad juhala ah waa ciidanka Itoobiya ama cawaan aad ku tilmaami karto. joogitaanka ay joogeen dhulkeenna ilaa haddana joogaan ayaana baray, dhexgalkaas aan la kulmayno ayaana baray in ay yihiin ciidan cawaan ah waa ciidanka Itoobiya, ciidan aad u dambeeyo, ciidan ka mid ah ama u dhaqmaayo sidii loo dhaqmi jiray xilligii qurun askariga Itoobiyaanka waxaa la baraa kaliya sida wax loo dilo. تعودت الميليشيات التابعة للأقاليم الإثيوبية التمدد في مناطق داخل السودان، وفي كثير من الأحيان يتم ذلك بمساندة من القوات الإثيوبية. ولذلك ما تم أخيرا هو اعتداء من ميليشيات قوات تابعة لإقليم الأمهرة حسب معلوماتي، وتمت مساندة من الجيش الإثيوبي. إنه ciidanka Itoobiya yahay cawaan federaali ama xitaa maleeshiyaadka Tigreeda ma ahan mid aanan iska leeyahay. waa kana hortaada ka muuqdo website-kan African News ayaa waraystay dad ku sugan gobolka. haweeney ka mid ayaa sheegtay in ay goobjoog u ahayd laynta tobaneeya rag reer tuulo ah. waxa laynayana waa ciidanka federaaliga Itoobiya oo ah sidaan sheegnay ciidan cawaan ah. hadalka ay haweenadaas leedahay waxaa la hubaa in uu 100% sax yahay, sababtoo ah waan aragnay falal noocaas oo kale ah oo ciidankaas aadka u dambeeyo ka geystay ilaa haddana ka geysanayo dhulka Soomaaliyeed. dagaalka rasmiga ah markuu dhammaaday oo uu Abiy Ahmed sheegay in ciidankiisa ay xoreeyeen gobolka, ayaa waxaa bilowday fasal kale oo ah dagaal iyo loolan midab kale leh. شريان حياة يصل إلى تيغراي بإثيوبيا. 7 شاحنات للصليب الأحمر الدولي تجوب شوارع العاصمة ميكيلي ضمن قافلة مساعدات إنسانية. inta aadan wax kala samaynin, qabso xaqiiqada ah in Itoobiya ay tahay waqooyiga Kuuriyada Afrika, dal xiran oo qam ah. xitaa dhicidii kaliga taliyihii Malla Zinaawi iyo weliba kii ka dambeeyey Hayle Maryam Tasallan. maxaad ka wadaa haddaba? maxaa u leedahay waa dal xiran? dadka ka barakacay gobolka Tigray waxay gaareen ama ayba ka badan yihiin 1 milyan. ilaah qaar ayaa leh waxaa barakacay 2 milyan oo carruur ah ayaa gargaar degdega u baahan. 50,000 oo dadkaas ka mid ah ay u carareen dalka Suudaan, halka kuwa kalena ay gobolka dhexdiisa ku barakaceen. هناك ما يقارب 6 ملايين تجراوي بما فيهم لاجئين أريتريين كانوا قد لجئوا
إلى إقليم تجراي أو إلى إثيوبيا. الآن يعانوا من أزمات إنسانية خانقة وخدمات طبية غير موجودة، بالإضافة إلى هناك هجرة أو تهجير قسري لهذه المجموعات إلى الداخل الأثيوبي أي إلى الداخل الإريتري. webka African News waxaa ku qoran sadar muhiim ah una baahan in aan fahanno oo ah xukuumadaha galbeedka waxay dareemayaan in dagaalkan uu yahay mushkilad cakiran in Ethiopia oo ah sida ay warbixintu leedahay furin hore la dagaalanka islaamka dabcan ayaga waxay adeegsanayaan la dagaalanka xagjirnimada ka jirta Suudaan sida meesha ku qoran dabcan hortanada ka muuqato in midowga Yurub ama xukuumadaha galbeedka Masiixiga ay leeyihiin maxaad isu dagaalaysaan idinka dhexdiina hawshan idin wakiilanay aaway oo ah dabcan camburinta ummadaha ku nool geeska Afrika waxaa jira dad dhulka hoostiisa ku nool oo aaminsan in ciidanka Ethiopia oo ah midka ugu horeeya ciidamada ugu caansan caalamka in uu nabad u keenayo ummad macawisa xiran mushkiladda haysata galbeedka ayaa ah in Tigreedu ku diin yihiin Christian Orthodox maamulka Ethiopia uu matalay Christianka bariga xitaa ayadoo Abiy Ahmed kan uu joogo sidaas darteed midowga Yurub wuxuu si toos ah u cambaareeyay falalka ciidanka federaaliga ka dhanka ah Tigreeda Orthodox ah ku diinta ah waxirsug mas'alada ah waxaan ku jirnaa caalam horumarsan oo diimaha meel la iska dhigay cilmaani ah aanan kala saaraynin ummadan diinta haysato iyo ummadaas kale diinta haysato qodobkaas iska ilow maalin dhow Macron wuxuu lahaa waxa waajib nagu ah in aan Armanka taageerno in aan Armenia taageerno dagaalka Nagorno-Karabakh ka socday ee sida xun loogu jibiyay Armankaas Kristanka maadaama ay ku diin yihiin wuxuu leeyahay waxa waajib nagu ah inaan u gargaarno laakiin waxa aan u taageeri la'anahay waa sida uu leeyahay Macron dhulkaas oo dagaalku ka socdo waa dhul ay Azerbaijan leedahay dhul ay leedahay oo Armanku hore u qabsadeen 94 ay qabsadeen qaramadii midoobeyna aqoonsan tahay in uu yahay dhul ay Azerbaijan leedahay qodobkaas ayaa ka hor istaagay kaliya ee arrinku ma ahan caalam horumarsan ama caalam ilbaxa ee aan diimaha fiirinaynin ummadaha aanan kala qaadaynin maya haddaan ku laabano qodobkan la xiriiro in midowga Yurub uu macaawinadaas ka joojiyay Ethiopia midowgan ma uuna joojinin kaalmaynta Ethiopia markii ay 2008 kala bar magaalooyinka Soomaaliyeed gubeen uguna horeysay Muqdisho oo runtii lagu tilmaami karay 2008 iyo 2007 in ay ahayd Stalingrad bal midowga Yurub uu taageerayay galbeedka si guud ahaaneed uu taageerayay dabcan waxa imaan doonta maalin la maxkamadayn doono maalin lala xisaabtami doono cid kasta oo kaalin ku leh duulaankaas xitaa kuwa dhintay aakhira ama adduun kay ahaataba la maxkamadayn doona galbeedka si guud ahaaneed weligii Ethiopia wuxuu u arkay khad difaaceed hore oo ku aadan caalamka islaamiga taas kama dhigno in shacabka Ethiopia kala bar una muslim ahayn laakiin xaalkooda waan la soconaa waxa ay yihiin calankan dal uu dadkiisu 50% ku dhawaad runtii tirakoobka muslimiinta Ethiopia intay yihiin ma ahan mid xaqiiqo ah inta badan waxa soo saari jiray tirakoobkaas xukuumadaas Kristanka dal dadkiisu 50% ku dhawaad ama 50% ay muslimiin yihiin ayuu sidaan ahaa calankiisa wax ka badan 100 sano libaaxayo saliibkaas hortanada ka muuqdo oo ay leeyihiin waxaan nahay libaax Kristanka geeska Afrika dhinaca kale xagay aadeen raggii hogaaminayay jabhadda uguna horeeyo Debretsion Gebremichael ninkii aadka u dhaaranayay oo magaciisu daliilo badan u muujinayo magaciisa Debretsion wuxuu ka dhigan yahay buurta Sahyuun halka magaciisa qaybta labaadna ee Gebremichael ama Michael uu ka dhigan yahay u adeegaha baadariga Michael ama Mikael intooda badan way joogaan doorka ayayna galeen dhowr maalin ka hor ayuu Debretsion Gebremichael kan sheegay wakaaladda Reuters fariin uu soo diray ku sheegay in dagaalku wali socdo tuulooyinka iyo xitaa daafaca caasimadda Tigreeda oo dagaalku ka socdo ciidamo Eritrean dhinaca kale Reuters ayaa ka soo xigtay afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayadoo leh waxaa jiro ciidamo Eritrean oo jooga gobolka Tigreeda arrinkaana waa mid khatar ah sida ay leeyihiin laga saaro ummadan Kristanka ah shacabkan Kristanka ciidamadaas shay laga saaro dhinaca kale halka uu Mareykanku taageeray in Afrika dhan ay rarka soo qaadatay Soomaaliya soo degto dawlad walba oo xitaa dawladda aan la aqoon Sierra Leone ummado juhala ah ummado eber ah in ciidamo laga keeno waxaad ilowday in Tigreedu ay ku diin yihiin laakiin aadan ku diin ahayn dad juhala ah bartamaha Afrika lagaga keenayo ninkan waxa lagu magacaabaa Dina Mufti
afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya wuxuu beeninayaa ama uu leeyahay maya wax ka jira ma lahan warkaas uu Maraykanku sheegayo Eritrean ma joogaan ama ciidan Eritrean ah ma joogaan gobolka Tigreeda طبعا internetka iyo isgaarsiinta Itoobiya ma ahan mid xor ah waa mid ku jirta gacanta xukuumaddaas sidaas darteed cid ogaan karta ma lahan waxa ka socda xaqiiqada dhabta ee ka socda gobolka Tigreeda qodobkan intaan ku egyahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته